waata daawadayaal waxaan ku sugannahay xarunta Isuroon oo maanta lagu soo bandhigay barnaamij lagu wacyigelinayay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota. Waxaa ii suura gashay inaan la kulmo Axmed Cabdulle Maadey oo ka mid ah qaranada Soomaaliyeed ee u shaqeeya bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka. Waxaan jeclahay in marka hore aan wax ka weydiiyo sharci cusub oo dhawaan la sheegay inuu soo baxayo balse maanta la joojiyay isla markaana la doonayay in dadka sharciga Mareykanka qaadanaya kuwaas oo isticmaala ceerta in sharci aan la siinaynin arintaasi dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ka walaac fara badan ka muujiyay qaarkood ayaa ceertii joojiyay qaarkood ayaa isdhahay sharci ma helaysid adigu waxa tahay nin qaran Soomaaliyeed arintan aad ula socda bal faahfaahin ka bixi sharcigan waxa uu yahay sharcigan waxaa la yidhaahdaa public charge ama sharci looga talagalay dadka Mareykanka jooga oo ceyrta qaata in sharciga looga diido sida qofka markuu wadanka imaada sida uu qaata green cardka ama citizenshipka oo dadka Mareykanka imaadaan oo sharci ka qaataan looga talagalay in sharciga looga diido but sharci diidista ma aha midda muhiimada oo looga talagalay waxaa looga talagalay dadka in lagu cabsi siiyo si ay maaragtay caawimaadka ay ka qaadanayeen dowladaha ama counties-ka ama state-ka ama federal government-ka ay ka joogsadaan sharciga marka maanta ayay ahayd inuu dhaqan galo oo 15 bisha October maxaa isbedelay faahfaahin ka sii bulshada Soomaaliyeed sharciga muddo dheer soo socday waxaa looga talagalay maanta inuu dhaqan galay ahayd si loo isticmaalo wixii maanta ka dambeeya laakiin maxkamad baa go'aamisay in sharciga aad dhaqan galaynin oo la istaajay ama block garay marka waxaa la yiraahdaa preliminary injunction waa wax oo like permanent aan ahayn oo joogto ahayn laakiin oo muddo ku kooban so hadda lama isticmaali kara sharciga asaga oo dadka looma isticmaali kara shacabka oo sharciga codsanayeen oo sida green cardka ama citizenship codsanayeen looguma diidi kara maxkamadda go'aamisay waa appeal laga qaadan karaa dowladda Mareykanka ayaa appeal qaadanaysa ama maxkamadda sare ama midda oo Supreme Court-ka ayuu aadi karaa markaas go'aan laga gaari karaa oo la ogaan karaa in sharci dhaqan galay yahay ama la istaajin doono sideedaba sharcigan hore ma u jiray mise waa sharci hadda madaxweynaha Donald Trump uu isagu wado oo bulshada lagu cabsi gelinayo sharcigan weligiisba wuu jiray public charge-ka wuu jiray weligiisba 100 sano ka hor ayuu jiray badi laakiin waxaa loo isticmaali jiray dadka wadanka soo galayeen ama viisada markay codsanayeen laakiin weligiis looma isticmaalin badi wadanka gudihiisa laakiin haddaas madaxweynaha hadda joogo Trump ayuu isku dayay inuu maaragtay dadku ku cabsi geliyo dadkana sharciga looga diido oo dadka wadanka gudihiisa iyo dibaddaba laakiin haddii uu dhaqan geli lahaa sharcigan maanta oo bisha ay tahay 15 October yuu saameyn lahaa tusaale ahaan oo kale dadka green card-ka haysta ama dadka sharciga ku soo galay wadanka oo qaxootinimada lagu keenay dadka noocaas oo kale miyuu saameyn lahaa haddii iyaga uusan saameynin yuu saameyn lahaa faahfaahin yar bal naga sii arrintaas sharciga ma saameyn lahayn dadka oo qaxootiga oo imaada ama refugeeska ingiriiska lagu yiraahdo ama asylumka ama dadka wadanka soo galaan oo nabadgelyo weydiistaan ama diyaaradaha ku soo galeen oo airport-ka iska dhiibeen ama dalka dibadiisa ha iska dhiibeen dadka saameyn kuma yeelan lahayn dadka green card-ka haysta oo ama aska lumay oo mar kale cusboonaysiinay dadkaasna saameyn kuma yeelan lahayn dadka kale oo saameyn ku yeelan lahay waa dadka oo wadanka soo galayeen dibadda ka soo galayeen ama dadka visa ka codsanayeen safaaradaha wadanka banaankiisa dadkaas ayuu saameyn ku yeelan lahay ama dadka wadanka jooga oo visa ku imaadeen ama guur sharci ku raadsanaya ama siba kale sharci ku raadsanaya dadkaas uu saameyn lahay dadka wadanka jooga oo sharciga loo diiday oo haddana codsaday temporary protected status wax la yiraahdaa ama TPS-ka loo yaqaana dadkaasna saameyn kuma yeelan lahayn ama qof cusub oo temporary TPS-ka codsanaya ha noqdo ama qof oo cusboonaysiinaya ha noqdo dadkaasna saameyn kuma yeelan lahayn hadda walaac fara badan ayaa jira bulshadii inteeda badneed way joojisay waxyaabihii xaq u lahaayeen ay qaadanayeen tusaale ahaan sida ceerta oo kale ama kuwa guryaha ku jiray oo iyagoo xaq u leh oo dowladda ay siinayso ayaa cabsi daraadeed u joojinayaan dadkaasi maxaa kula tala lahayd dadkaas waxaan kula talin lahay dadka caawimaadka qaadanaya ama county-ga ha noqoto ama state-ka ha noqoto ama gobolka ama dowladda sare inay caawimaadka ay qaadanayeen ay istaajineen because
waayo linkuguma tiragelin idinka sharcigan inuu insaameeyo laakiin inuu inka cabsi siiyo sidaas yani aas ugu tagtiin wixid qaadanayseen ama ku istaajisiin dad badan aan garanayaa hadda guryihii degnaayeen ka tageen oo qaadan jireen guryo oo low income kaga tageen oo green card holders ah oo green cardkooda ay ka haystaan marka sharcigan waxaa looga tiragalo un dadka in lagu cabsi siiyo waxayna u egtahay madaxweynaha iyo dadka asaga la shaqeeya inay ku guulaystaan laakiin waxaan dhihi lahay ummadda soomaaliyeed ama ummadaha kale wixii af soomaaliga fahmaayo oo wadanka degan inay sharcigan ayaka looga tiragelin bad in lagu cabsi looga tiragalay ay wixii qaadanayeen caawimaadka ay dowladda ka qaadanayeen ay sii wataan ay istaajinin ayaan ku dhihi lahay dadka aad baad umahadsan tahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa qareen soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota oo lagu magacaabo Axmed Cabdulle Maadey oo maanta isagoo ku sugan xarunta Isroon aan ku wareystay isla markaana aan ka wareystay barnaamij amba sharci dhawaan la doonayay in la soo saaro oo lagu cabsi gelinayay dadka qaxootiga ah ee soo galaya dalka Mareykanka iyo waliba kuwa ku nool intii aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmeyno waa deeq darajo oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo